maamulka iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee dugsiga Sultan Maxamed Al-Faatix ee magaaladani Booramo oo kamid ah dugsiyada loogu jecel yahay magaalada Booramo isla markaana ugu tayada fiican dhanka waxbarashada ayaa waxay maanta maamulka dugsigaasi ay bulshada gobolka Awdal ugu bishaareeyeen inay bixin doonaan deeq waxbarasho oo gaadhaysa ilaa 50 arday iyagoona gudaha dugsigaasi maanta shir jaraa'id ku qabtay ayaa waxay u mahad celiyeen hay'adda Xikma Foundation oo bixinaysa deeqdani waxbarasho lacagteeda waxayna bulshada kala duwan ee magaalada Booramo maanta ugu baaqeen inay bilaabmatay diiwaangelinta iyo qaadashada ardayda cusub ee ka mid noqon doona dugsigaasi ee deeqdaasi waxbarasho bilaashka lagu siin doono iyagoona bulshada ugu baaqay inay ka wada faa'iideystaan deeqahaasi waxbarasho. The main objective of this conference, or the main objective of this conference actually, is we want to announce the 2018 scholarship that the school will be providing to students. Our directors, Hikma Foundation, they believe in the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in a hadith says, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا فِي الْجَنَّةِ. So this is the objective. The directors of this school, they believe in that hadith. So as Hikma Foundation this year, they've decided to give 50 scholarship to students who will be joining us in this school. The 50 scholarships will be distributed as follows. That is, in Form 1 we are going to have 25 positions, in Form 2 we are going to have 5, in Form 3 we are going to have 5 again. Xikma ayaa maanta waxay keentay in iskuulkan loo keeno arday scholarship oo qaato dugsigan Sultan Maxamed Al-Faatix maanta 50 arday oo secondary ah oo scholarship oo laga bixinayo lacagta 50 ka arday imtixaan baa laga qaadi doonaa haddii Ilaahay nagaarsiyo maanta ay bilaabanayaan xayeysiinta iyo barnaamijkeedu 50 ka arday waxay ka kooban yihiin 25 arday waa form 1 kuwa imka soo baxay waxa laga qaadi doonaa imtixaan 5 arday waa form 2 5 ardayna waa form 3 5 iyo 10 ardayna waa form 4 dhammaantood waxaanu ku qaadanaynaa wada sax oo imtixaan ka qaadno waxa laga qaadayaa qolo waliba waxay soo dhigatay ayaa laga qaadayaa imtixaan alxamdulillah waxaan maanta markaa iclaaminaynaa iskuulka Maxamed Sultan Al-Faatix ee loo yaqaan iskuulka Turkiga maanta inuu qaadanayo sanadkani bisha October bilowgeeda 50 arday oo secondary oo scholarship oo lacagta laga dhaafayo oo iskuulka ku dhigan doona muddo dheer inta ka hadhayba ee ay qoladaasi u wadayso waayo waxa laga soo qaaday scholarship-kan meeshaas intay u wadayso waxa 2 sano ay noqon kartaa 3 sano ay noqon kartaa 4 sano ay noqon kartaa haday doonto laakiin ugu yaraan 2 sano horta waan hubaa inay wadayso wixii ka dambeeyana waxa si rajaynaa si wadi doonto oo ay sii socon doonaan oo ay ku dhamaysan doonaan dhammaantoodba kuwa form 1 ilaa form 4 kooda shirka jaraa'idtaasaan u qabanay waxaanu leenahay waan soo dhaweynaynaa deeqda waxbarasho ee iskuulka loo fidiyay waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay welcome ha ku soo dhawaadaan ardayda reer Boorama ha ka faa'iideystaan imtixaankaasi shuruudaha uu leeyahay haddaan in yar ku noqdo waxaa ka mid ah qolooyinka form-1ka kow waxaa laga rabaa inuu ardaygu soo galay national examinationkii dhibcihiisuna ay ka sarreeyaan 400 laba inuu yahay arday akhlaaqiyan dhisan 3 inuu imtixaanada ku guulaysto qolada form 4ka haddaan u galno waxaan ka qaadi doonaa imtixaan aad standard u ah oo isugu jira saynisyada iyo xisaab iyo English form 4ka waxaa laga rabaa in dhibcaha ardayga ay form 3 uu haystay uu ku jiro 10 arday ee ugu sareeyay iskuulka uu ka imanayo dhammaan deeqda waxbarasho bilaashka Booramo waxaan ugu bishaaraynaynaa muddo kooban bay soconaysaa maanta bilaabantay khamiistana way dhamaanaysaa deadline-ku waa 4 galabnimo ee maalinta khamiista ah maanta salaasa arbacada iyo khamiista hore ha loo soo xireeyo hore applicationska loo soo xireeyo hore ha la isku diiwaangeliyo arday kasto u qalma shuruudahana ka soo baxaya deeqda waxbarashada ha laga faa'iideysto gelintu waxay ka socotaa dugsiga Sultan Maxamed Al-Faatix oo ku yaala waqooyiga magaalada iyo xafiiska uu ku leeyahay macadka culum ee ku yaala kaalinta keele ka soo horjeedkayga labada goobood baa la iska diiwaangelinayaa hore ha loo gaadho deeqda waxbarashada ha laga faa'iideysto